بسم الله السلام عليكم صلوا هذا كاري أصحابته أدبا السلام يا ولالي الصوماليين ميل كستود أدونك كجوكتان ولالكين إسماعيل حسن أرح waxaad daawanaysaan Arax Media haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqato waxa ka codsanaya inaad subscribe tiraahdo like-na aad siiso share-na aad tiraahdo comment-na aad ka bixiso haddii asxaabta cusub aad ka mid tahayna adigana waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaada iyo aadna siisay haddaba maantay waxaan ka hadli doonaa hadduu ilaahay karaale noqdo sida maalin hore idinkagu ballan qaaday gabdhaha waan ka hadlay waxyaabaha lagu dooranayo maanta waxaan ka hadlayaa wiilasha qodobada lagu dooranayo iyo dhowr nooc qofka haddii uu yahay wiilka inaysan gabadha guursan haddaba gabar yahay waxaan ku hayaa dhowr rag weliga agtooda ha marin noocyadiin rag waa noocyo badan yihiin laakiin baaritaana aan soo sameeyay aniga waxaan ogaaday ilaa iyo dhowr nooc ragga in gabdhaha looga digo markaasna ayagana ay iska fiirsadaan haddaba qodobka ugu horeeya waxay tahay master non muslim nin la dhaho waa qofka aan muslimka ahayn diinta islaamka haysanin diin walbo haystabo hadduu diinta islaamka haysanin waqtigaada ha ku dhuminin of course haddii aad soo muslimisid oo adiga jacayl ku qabo oo ku soo muslimo walxamdulillah falilah alxamdu haddii uu kaa diidana nabadgelyaad leedahay gabar muslimaad tahay qiimaad leedahay qiimahaadana waxay tahay waxaad risaaqad u tahay muslimiinta ragga muslimiinta ah laba qodobka labaad maxay tahay master muslim by name waa ninka muslimka ah magac ahaan wuxuu ku leeyahay muslimaan ahay laakiin dhaqankeeda ma lahan salaada ma tukado ma soomo ilaahay kuma dara sakada ma bixiyo dhaqankiisa kale good manners fiican ma lahan qofkaas oo kale waa qofka aad waqtigaada isaga dhuminaynin remember diinta islaamka waa diin practical ma ahan sheegid ama theory ma ahan wax qof walba uu iska sheeganaya dad muslim tahay waa inaad la imaado ficiladii muslimiinta laga rabay waa qodobka labaad waaye haddaba qodobka saddexaad maxay tahay master player haddaba gabar yahay haddii aad aragtid nin ama inan markii sheekadiisa ugu horeyso kugula soo galo waxyaabo aan habboonayn isku dayaya waqtigaada inuu dhumiyo haddaba waqtigaada qaali waayo ninka haddii diyaar u yahay inuu ku guursado u sheeg waalidiintaada meeshay joogaan aabbaha walaalka adeerka qof walba oo maxram xilligaas ku ah u sheeg waqtiga isaga dhuminin haddii aad inta u sheegtid uu ahaa nin aan diyaar ahayn waxa ku soo baxayso actually wuu cararayaa ninkaas saasa lagu ogaadaa ninka inuusan diyaar ahayn waqtiga iska dhuminin maxay tahay 10 sano qof la sheekaysanaya waa qofka ilaa haddana waa ku karlaadina waalidka uu tago waqtigaada qaali waaye qofka go straight to the point hadduu ku rabo waalidka u tagdhay walaal macaan aniga gabar muslim baan ahay waalidiinta la soo hadal leh waa qodobka saxad fourth master obsessed waxay tahay erigan waa Englishan ku sameeyay obsessed waxay tahay waa nin rabo inuu ku control wax walba aad sameynaysid uu ku soo wacaya xageed joogta suuqa ma joogta iskuulka markaa joogto uu ku soo wacaya xaafadda markaa joogtid uu ku soo wacaya uu ku weydiinaya maxaad sameynaysaa hadda maxaad iga qaban weyday lambarka maalin wuxuu ku soo wacaya 50 jeer hal mar haddii aad lambarka ka qaban weydidna isku dhac kale guur waay wuxuu ku weydiinayaa inaad macnaha dadka maanta oo dhan waxaad sameynaysaa adigu waa qof literally waa qof control kugu sameynayo oo rabo wax walba oo aad sameynaysid inaad asaga la tashatid ama aad la socodsiisid waa yani qofkaas wuxuu isku dayayaa waqti inaad la qaadan ehelkaada wuxuu isku dayayaa waqti inaad la qaadan saaxiibtaada wuxuu isku dayayaa waqti inaad la qaadan waalidiintaada wuxuu rabaa waqtigaada oo dhan inaad siisid haddaba iska ilaali waqtigaada waa qaali qofka noocaas aad ku aragtid in the beginning ama bilowgii dabcan waad garan kartaa waqtigaadii uu tago oo dee aad isguursataan waxa ka imaan karo waxaad noqon doontaa xabsi baad gelaysaa nolol waxaad ku noolaanaysaa oo adag iska ilaali ragga noocaas fourth fifth master barashar Allah kan master barasharka waa ninka kugu soo galo waxyaabo aad u qaldan waa ninka barashadiisa ay ka bilaabato foundationkiisa barashadiisa hoose ay tahay wax xun wuxuu kugu soo galayaa sida hadda aan maqlaynay oo facebookyada iyo youtube-yada aan ku arkaynay gabar baa la xumay gabar baa sawir dirtay kulli ana magaceeda sheegi maayo waxyaabahaas oo kale haddaba gabar yahay sharaf baad leedahay sharaf buu ilaahay ku siiyey cizi buu ilaahay ku siiyey ninka haddaad ku arato dhaqan xumo noocaas oo kale ah inuu video kaasoo wacayo amaba waxyaaba sawirro qaldan uu ku dhaho ii soo dir
qofkaas waqtiga ha isaga dhuminin. Pressure la dhahaa wuxuu rabaa inta yar ee uu barashadiina inta yar buu rabaa inuu ka faa'iideysto. raggana qaar waxaa la dhahay waa bahalo anaade waa waraaba la dhahaa ragga marka iska ilaaliya. macnaha ragga dhan maaha waa ragga dee ambuwan ku jiraaye ragga qaar baan ka hadlayaa. master barasha waqtigaada ku dhumin haddaad ku aragtid qofka akhlaaq xumo anshax xumo bilowga hore ah horey buu ninkan wax u soo baabiyey guurna kaamar waa gaabsi buu rabaa walaashii waqtigaada maxaa la jiray ka faa'iideyso qofkaasna waqtigaada uu ka dhuminin. qodobka lixaad master westman ala dhahaa waa nin cilmi diina kama faa'iideysid cilmi maadina kama faa'iideysid akhlaaq wanaagsan ma lahan wax aad ka faa'iideysid noloshaada uu ku daraayo ma jirto. waa qof useless ereyga marka la isku daro qofku wuxuu leeyahay ninka muxuu sheegayaa laakiin waan ku kala qaaday waa use full bay noqon kartaa ama less ay noqon kartaa. soo kan waa useless waay noloshaada waxba kuma kordhinayo qofka westmanka ah. waxaad arkaysaa 20 sanad isqabtaan weligaa hal caqli kuuma soo kordhin dhanka diinta kuuma soo kordhin oo aqradaada kuuma nasteexinin adduunka waxba kuuma sheego waa wax aad ka faa'iideysid ma lahan. haddaba qodobka kale maxay tahay misgonistic ereygan waxaa waaye soomaaligiisa waa ninka neceb dumarka waa ninka dumarka aan ixtiraamin sharfin cizeynin oo ilaa kuma darnaaday dumarka aan ixtiraam badan u haynin. waa ragga nooca dumarka aaminsan inay liitaan dumarka yani iska weyneysiyo oo hilmaamay in hooyadiisa ay tahay dumar in walaashiisa ay tahay in xaaskiisa ay noqonayso in ilaa kuma darnaaday gabadhiisa ay noqonayso. waa qof aan hadafkiisa uusan fogeyn oo aan maskaxdiisa ilaa kuma darnaaday aad aysan yani u kala bixin. waxaa la dhahaa misgonistic uu neceb yahay dumarka erey xun buu isticmaalaa. erey kale waxay tahay stingy or selfish. stingy waxaa waaye qofka markuu yahay baqaylka ina adeeray walaalay waxaan ku leeyahay gabar Soomaaliyeed aad tahay waa ku jeclay walaashii aad tahay nin baqayl ah agmarin. wallahi baan ku dhaartay guriga marka nin baqayl markaad guursatid ilmahaada way baqtinayaan adna waad baqtinaysaa familkaada dhan way baqtinayaan nolol waxa ku nooleysaa xiriir. waxa laga yaabaa ninkaas inuu leeyahay hanti inuu leeyahay billionaires laakiin qalbigu faqiir ka yahay waxba kuma ogolo wixii markuu ku siinayo jira intuu galo xogaa laba xabo ku soo dusinayaa. nin stingy ah agtiisa ha marin. intaas baan qodobadaasaan idinla wadaagaya walaalihii Soomaaliyeed ana waxa waajib nagu ah inaan wixii markaasi waana ah gabdhaha walaalaya aan seeno saana u jecelnahay. Nabi Maxamed alayhi salaam wuxuu dhahay qofka walaalkiisa muuminka ahi muumin ma noqon karo ilaa walaalkiisa uu la jeclaado wuxuu isaga jecel yahay. marka wixii caqli iyo cilmi ilaahay idin siiyo kale waa lala wadaagaa dadka walaalaha gabdhaheena Soomaaliyeed madaxay noo saaran yihiin. haddaba samari baan ku celinayaa nin aan muslim ahayn weliga ha agmarin nin ilaa kuma darnaaday aan diinta practice gareynin ama baan ku dhaqmin salaada tukana agmarin nin ciyaar suuqa oo waqtigaada ka dhuminaya agmarin nin raba inuu ku controlo maxaa la jiray agmarin nolosha mustaqbalkiisa long term plan ma lahan. nin master pressure marka hore kula soo galay ciyaar suuqnimaha agmarin. westman qof waqtigiisa dhuminaya agmarin. misgonistic qof dumarka neceb agmarin iyo mid ilaahay kuma darnaaday stingy ama ba baqayl. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa asxaabta waxaan ku celinayaa haddii aad barnaamijka ku cusub tahay oo aadan weli saarin subscribe saar lagna dheh comment dheh share dheh si ay dhiirigelin igu noqoto anna aan soo geliyo barnaamijyo badan oo ku saabsan social dadka community-geena dan ugu jirto ama markaasi barnaamijka taagan problemka taagan iyo qaabka loo xallin karo. insha Allah taala ayaan la wadaagi doonaa inta aqoonteena yar ay gaarsan tahay. aad baan idin salaamayaa waxaan idin rajeynayaa khayr cimri dheer caafimaad cibaado suuban. assalaamu calaykum nabadgelyo.